وعنا wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show waa 15ka bisha Agoosto sanadka 2026 maalin sabti ah qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doona waxaa kamid ah maxaa ka jira Imaaraadka Carabta in lacag balaayin dollar ah iyo dahab aad u tiro badan inuu ka dajiyo magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran muxuu ku bedelanayaa lacagtaasi waxaan eegi doonaa warbixin ku saabsan rubac kamid ah diyaaradaha MQ-9 ee Mareykanka uu waayay hanjabaadda culus ee madaxweyne Trump ka soo yeertay iyo maamulkiisa oo ah in Iran ay la kulmi doonto go'doomintii dhaqaale ee ugu adkeyd Iran oo dhankeeda fariintaasi ka jawaabtay Israel oo baadigoobaysa in ka badan 12,000 oo askari 7,500 oo kamid ah si degdeg ayaa loogu baahan yahay warbixino kale iyo macluumaadyo ku saabsan madaxweyne Trump iyo maamulkiisa oo raadinaya shaqsigii ay ku bedeli lahaayeen Netanyahu maadaama dhiiqa badan lugaha u gelinayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqaynta caalamka markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan xogaga xoutiyiinta ee dalka Yemen ayaa la sheegay in weerar culus ay ku qaadeen xalay goob ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda caalamku uu aqoonsan yahay gaar ahaan deegaanka Moqa oo kamid ah dalkaasi Yemen weerarkii ugu cusla ayaa lagu tilmaamay inuu yahay waxaana loo adeegsaday tiro gantaale plastiga iyo diyaarada drones waxa lagu bartilmaameysaday goob la sheegay in ciidamada isku urursanayeen kayd hub u ahayd iyo sidoo kale doomo dagaal oo xoutiyiinta ay dareensan yihiin in lagu soo qorsheynayo weerar iyaga ka dhan ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kooxda Ansaarullah ee xoutiyiinta dalkaasi weerarkaasi ayaa sababay burburka hub doomo dagaal iyo dhimashada tiro kamid ah ciidanka dawladda Yemen ee caalamku uu aqoonsan yahay halka 10 kale la sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen afayeenka xoutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in xoutiyiinta ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka goobo uu sheegay in ku sugan yihiin ciidan Sacuudiga uu taageersan yahay goob kasta ay joogaanna inay beegsan doonaan muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya urada cirka isku shareertay goobo badan oo gubanaya waxaad moodaa in la bartilmaameysaday goobo muhiim ah markaad eegto dhowr goobood oo gantaalada ay ku dhaceen iyo gubashada goobahaasi ka muuqanaysa ilaa 4 goob ayaa ahayd meelaha ugu daran ee magaalada Moqa ee dalkaasi Yemen oo galbeedka dalkaasi ah xoutiyiinta dalkaasi ayaa moodaa inay isticmaalayaan gantaaladii plastiga ay u adeegsan jireen weerarka ka dhanka ah Israel waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah macluumaadyo cusub ayaa soo baxay oo ku saabsan Imaaraadka Carabta ma heshiis qarsoodi ah oo dhaqaale ayuu la galay dawladda Iran mise mid amni waa maxay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee la diiwaan geliyay su'aalaha dib u soo laabtay iyo hadalhaynta iyo macluumaadka laga qoray warbixintaas ayaan kula wadaagi doonaa sheekadii ugu dambeysay waxay mar kale soo ifbaxday maalin kadib markii sida la sheegay diyaarad gaar oo laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta inay lacag iyo dahab ay geysay gudaha dalkaasi Iran hase yeeshee marka xogta la raaco ayaa waxa soo baxay cadeymo kala duwan iyada oo la soo bandhigay sawirada tixraaca diyaaradaha qaarkood arrintaani ma aysan soo bilaabeen hadda oo kaliya 12 bishii June 2026 wakaalada wararka ee Reuters ayaa daabacday warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan in Imaaraadka Carabta iyo Iran ay ka wada hadleen siideynta lacaga badan oo Iran ay leedahay 2 ilaa 3 ila wareed ayay Reuters ka soo xigatay in xukuumadda Abu Dhabi ay ogolaatay in Iran loo sii daayo ku dhawaad 10 bilyan oo dollar iyadoo in ka badan 3 milyan oo dollar la sheegay in markii hore la gaarsiiyay ama loo fasaxay Tehran sidoo kale waxa soo baxay wadarta guud ee heshiiska inay ka badan karto in ka badan 10 bilyan oo dollar sida ay wakaalada wararka ee Reuters iyo warbaahinada gobolka ay baahiyeen haddaba maxaa dhacay saacadihii la soo dhaafay 12 iyo 14 bishan aan ku guda jirno waxa la baahiyay macluumaad ku saabsan in diyaarad gaar loo leeyahay oo shirkad gaar ahaaneed oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ay duulimaad ku tagtay magaalada Tehran waxaana wararkaasi baahinaya qaar kamid ah warbaahinta gobolka xogta raadraaca duulimaadyada ayaa waxa ay soo bandhigeen duulimaadyada dhabta ee dhacay taas oo qayb ka ahayd xaqiijinta ugu adag diyaarad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa la xaqiijiyay in ay safar ay ku tagtay gudaha dalkaasi Iran laakiin lama sheegin socdaalkeeda iyo waxa uu yahay warar kale oo la faafiyay ayaa sheegaya in labadaasi safar gudaha dalkaasi Iran lagu geeyay ilaa 2 tan oo dahab ah oo lagu qiyaasay qiimaha 280 ilaa 285 milyan oo dollarka Mareykanka
qaar ka midana waxay sheegayaan suuragalnimada lacagta ama qiimaha lagu qiimeeyo dahabka inuu intaa ka hoos mari karayo oo la gaarsiiyey qiyaastii 220 milyan. kala duwanaanshahaasi qiimaha marka laga yimaado waxaa suuragal ah in dahabkaasi laga dejiyo gudaha magaalada Tehraan oo caasimada dalka Iiraan ah. waxaase la isweydiiyey maxaa Imaaraadka Carabta ku qasbi karaya heshiis noocaasi ah. marka la eego xaaladda gobolka, sababta ugu weyn waxay noqon karaysaa ammaanka iyo dhaqaalaha Imaaraadka. Imaaraadku wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga caalamiga, duulimaadyada, dekadaha, maaliyadda iyo maalgashiga shisheeye. dagaal joogto ah oo Iiraan lala galanayo wuxuu qatar ku noqonayaa Dubai iyo Abu Dhabi iyo xitaa Imaaraadka guud ahaan marka laga hadlayo noocyada kala duwan ee dhaqaalaha iyo maalgelinta dalka isotaga Imaaraadka Carabta. xitaa Imaaraadka isagoo haysta nidaamyo difaac oo casri ah, heshiisyo militariina kula jira dowlado dhowra, haddana waxay ka baqayaan saameyn in arrintan ay ku yeelato maalgelintii dhaqaalaha ee lagu sameyn jiray dalka isotaga Imaaraadka Carabta iyo in Imaaraadka uu yahay halka caalamka lagu kala wareego dhanka ganacsiga. wargeyska Financial Times oo arrimaha dhaqaalaha wax ka qora ayaa dhawaan daabacay in Imaaraadka Carabta uu qaaday wado u muuqanaysa inuu isku dayo inuu dejiyo xiriirka kala dhexeeya dowladda Iiraan, iyadoo dhinaca kalena ay sii xoojinayso xiriirka Israa'iil iyo Mareykanka ay la leedahay. ujeedaduna waxaa lagu sheegay in Imaaraadka Carabta uusan doonaynin in hal dhinac oo kaliya uu go'o, isla markaana isku bedelo goob dagaal oo joogto ah. intii dagaalkii ugu dambeeyay uu socday, Imaaraadka ayaa ahaa dalka ugu badan ee la kulmay weerarada dowladda Iiraan iyo jawaabta Iiraan ay ka bixinayso weerar kasta oo Mareykanka ama Israa'iil ay ku qaado gudaha dalkaasi. taasina waxay sii xoojinaysaa xaqiiqda in dhaqaalaha Imaaraadka Carabta si weyn ugu nugul yahay qalalaasaha gobolka. 13 bishan aan ku guda jirno maalmo ka hor waxa wakaalada wararka ee Reuters ay baahisay in dagaalka Iiraan uu wax weyn ka bedelay habka shirkadda lagu magacaabo ADNOC ay u maamusho dhoofinta saliidda, marinada maraakiibta iyo suuqeynta tamarta, taasoo muujinaysa sida ammaanka marinka Hormuz iyo xiisadda dowladda Iiraan uu saameyn taban ugu yeeshay danaha dhaqaale ee dowladda Imaaraadka Carabta. sidaasi daraadeed, haddii Imaaraadka Carabta uu sii daayo hantida dowladda Iiraan kaga xaniban gudaha dalkaasi, waxaa macquul ah in tallaabadaasi loo arko qayb ka mid ah siyaasadda Imaaraadka uu ku dejinayo xiisadda gobolka oo ah in lacag iyo diblomaasiyad lagu yareeyo Qatar si toos ah ugu yeelata saameyn dowladda Imaaraadka Carabta inta uu soconayo dagaalka gobolka. Imaaraadka iyo Iiraan macluumaadyadan oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gobolka si rasmi ah kagama aysan hadlin. wargeyska lagu magacaabo Defense Security Asia ayaa si gaar ahaaneed diiradda u saaray diyaarad ay leeyihiin maamulka boqortooyada dalkaasi inay si qarsoodi ah ay balaayiin dollar ay u geysay gudaha dalka Iiraan si loo difaaco heshiiska u dhexeeya Imaaraadka iyo dowladda Iiraan. war kasta ama macluumaad kasta oo labada dowladood ay ka soo saaraan xogahan iminka la baahiyay barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. waxaana xogtani ku soo beegmaysaa iyadoo Imaaraadka xitaa hore dhowr jeer loo baahiyay intii dagaalka uu socday in gudaha dalka Iiraan uu weerar uu ka furiyay, taasoo aad muddo mar walba in lagu sii xoojinayo qatarta iyo xiisadda u dhaxaysa dowladaha Iiraan iyo Imaaraadka Carabta. markaan aan eegno, dowladda Iiraan ayaa lagu waramayaa awood weyn oo dhanka cirka inay la soo baxday, khasaare xooggan ay gaarsiisay Mareykanka intii dagaalkii ugu dambeeyay lagu guda jiray. in ka badan 45 diyaaradood oo nooca MQ-9 Reaper loo yaqaano ayay Iiraan burburisay ama ay soo riday. hadda la isma weydiinayo burburinta iyo soo riditaanka ee waxaa si weyn loo falanqeynayaa awoodda dhanka cirka ee dowladda Iiraan oo ay ku soo riday diyaaradahan iyo diyaarado kale, kuwaas oo loo arkayay inay iska dulheehaabayaan hawada dalka Iiraan. diyaaradan markaad eegto midkiiba in ka badan 30 milyan oo dollar ayaa la iibiyaa. waa khasaare xooggan oo balaayiin dollar oo Mareykanka soo gaaray intii dagaalkii ugu dambeeyay lagu guda jiray. taasi waxay keentay Mareykanka hadda hanjabaad culus inuu soo saaro. wasaaradda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa waxay ku hanjabaysaa in khasaarihii ugu xoogganaa ee dhanka godoominta badda Iiraan la saari doono, sidoo kalena la cunaqabatayn doono. waxaana lagu tilmaamay cunaqabatayntaasi ama godoomintaasi inay noqonayso mid aysan abid ka dhicin caalamka. arrintaasi waxa ugu wacan marinka Hormuz. 24 saac la soo dhaafay waxaad moodaa hadalla hanjabaada inay ka soo yeerayaan Mareykanka, waxaana moodaa inaan la isku fahmin sheekada marinka Hormuz ku saabsan, taasoo keeni karta inqilaafkii iyo dagaalkii labada dhinac mar kale ay soo xoogaystaan. wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa horey cunaqabatayno kala duwan Iiraan u saartay, inkastoo Mareykanka awood u leeyahay inuu weerar ka fuliyo gudaha dalka Iiraan gaar ahaan isagoo adeegsanaya diyaaradihiisa casriga. haddana xogaha iyo warbixinada la soo bandhigay ayaa muujinaya in difaaca cirka ee dowladda Iiraan weli gabi ahaanba uusan ahayn mid meesha ka baxay.
awoodda dhinaca cirka ee dowladda Iiraan ayaa la sheegay inay tahay mid aad u heer sarreysa marka la eego raadaarada, nidaamyada dabagalka, gantaalada lidka diyaaradaha iyo shabakadaha difaac ee isku xiran, taasoo keentay in Iiraan ay soo rido diyaaradda MQ-9 Reaper, diyaaradda F-15 iyo diyaaradda F-35 kuwaas oo ah diyaaradaha ugu muhiimsan ee Mareykanka u isticmaalayay intii dagaalka uu socday. waxaa sidoo kale la isweydiiyey awoodda dowladda Iiraan ay ku gaartay gudaha dalalka Carabta iyagoo halkaasi lagu burburiyay qaar ka mid ah diyaaradaha ugu muhiimsan Mareykanka. dhinaca kalena Israa'iil ayaa waxay baadigoobaysaa in ka badan 12,000 oo askari kuwaas oo la sheegay in 7,500 oo ka mid ah si degdeg ah loogu baahan yahay inay hadda dagaalka si toos ah u galaan. sababta ugu weyn waxaa lagu sheegay hadda Israa'iil inay ciidan badan ay u kala qaybisay magaalada Gaza, waqooyiga, xadka Suuriya, Jordan iyo sidoo kale gudaha Lubnaan. markasta oo furan cusub lagu soo darana waxa loo baahanayaa askar kale oo dheeraada. hadda dhibaato xooggan ayaa ciidamada Israa'iil haysata, waxaana la sheegay ciidankii kaydka in la weysan yahay. in ka badan 12,000 oo askari ayaa maqan, taasoo ka dhigan in weli Israa'iil ay usii dheer tahay maqnaanshiyahaasi, daalka iyo culayska joogtada ay la kulmayaan ciidamada Israa'iil. ciidanku wuxuu wajahayaa qalalaaso ku saabsan qaab dhismeedka, iyadoo halis weyn ay gelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka. dhibaatada ma ahan oo kaliya yaraanta askarta, waxaa sidoo kale jira isku darka 12,000 oo askari oo maqan marka la eego tirada guud ee ciidanka loo baahan yahay, iyadoo 7,500 oo ka mid ah si degdeg ah loogu baahan yahay. waxaana sii dheer daalka, tabardarrada iyo sidoo kale kumanaanka askari ee sida joogtada sanad kasta kaga baxaya adeega ciidanka. culayska sii kordhayana waxa uu saaran yahay saraakiisha iyo taliyayaasha ciidanka, iyadoo qarashaadka dhaqaale la sheegay culays weyn inuu ku yimid sanadihii lasoo dhaafay. tani dagaalkii Oktoobar 2023 Israa'iil waxaad moodaa in culays weyn ay la kulantay oo dhanka ciidanka ah. wargeyska Israa'iiliga iyo Dacood Axranood ayaa baahiyay in taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Eyal Zamir uu hadda hogaaminayo qorshe ballaaran oo dib loogu dhisayo awoodda dhaqaale iyo tan militari ee ciidanka. ujeedaduna waa in la buuxiyaa farqiga ay sababeen sanado badan oo lagu tiirsanaa fikradda loo yaqaan ciidan yar oo caqli badan, taasoo ku dhisneyd ciidan joogto ah oo kooban, iyo marka dagaal si ballaaran uu u dhaco in ciidan badan loo baahan yahay. hadda dhammaan ammaantii ciidamada Israa'iil iyo awooddii ay lahaayeen ayaa daaqada ka baxay marka la eego furmaha kala duwan ee dagaalka. Netanyahu waxa uu diiday ciidamada Israa'iil in laga saaro magaalada Gaza, waxa sidoo kale uu diiday dhanka Suuriya in laga saaro. markii horena marka ciidanka furin dagaal laga bixiyo waxa la geyn jiray qayb kale ama furin kale. hadda dagaaladii way dheeraadeen, furmihii ayaa batay, taas waxay muujinaysaa xadidaadda ciidanka. ciidamada Israa'iil ayaa mar dambe waxa la sheegay inaanay ku filnayn ciidamada kaydka oo kaliya oo muddo gaaban loogu yeeri karayo, waxaana hadda u baahayeen tiro badan oo askara kuwaas oo si joogto diyaar u ah, tababar qaatay, qalabaysan, isla markaana awood u leh inay muddo dheer howlgalka ay ku jiraan. dhinaca kalena wargeyska The Axios ayaa baahiyay macluumaadka ku saabsan in maamulka madaxweyne Trump uu bilaabay in xiriir qarsoodi ah uu la sameeyo qaar ka mid ah xubnaha ugu sarreeya mucaaradka, iyadoo ujeedadu ay tahay Netanyahu in meesha laga saaro. sabtida maanta ilaa maalinta berri oo Axada waxaa suuragal ah in ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha gobolka iyo wiilka sodog u yahay Trump ay gaaraan gudaha Israa'iil iyo xitaa dalka Masar, iyadoo xabajoojintii la doonayo diiradda in la saaro. laakiin wargeyska The Axios macluumaad kale ayuu baahinayaa, waxaana lagu warramayaa Trump iyo maamulkiisa inay raadinayaan Netanyahu iyo shaqsigii lagu bedeli lahaa si warkooda ruux u maqlaya xilka uu qabto. Gedi Eisenkot, Naftali Bennett iyo Yair Lapid, saddexdaasi ayaa lagu warramayaa hadda miiska inay u saaran yihiin maadaama doorasho ay dhicayso 27 bisha Oktoobar ee soo socota, doorashadaas oo la filaya Netanyahu iyo xisbigiisa in looga awood bato. macluumaadkan wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. like saar muuqaalka haddii aad kartid, lana wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. xukuumadda Moscow ayaa ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto maraakiibta wadamada qaaradda Yurub, taas oo jawaab u noqonaysa tallaabooyinka midowga Yurub ay ku beegsanayaan maraakiibta ganacsi ee dowladda Ruushka. isla markaana Ruushka waxa uu diiday soo jeedinta dowladda Turkiga ay ku doonaysay in la joojiyo weerarada lagu qaadayo maraakiibta dalalka dariska ah ee ku sugan biyaha badda madow. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay iska aamusi doonin haddii maraakiibteeda ganacsiga ay bartilmaameedsadaan dalalka midowga Yurub, wuxuuna midowga Yurub uu ku eedeeyay inuu isku dayaan inuu yareeyo awoodda Ruushka oo dakhli uga heli karayo suuqyada caalamiga, gaar ahaana iibka shidaalka. waa tii dhowaan aan warbixin idinkula wadaagay midowga Yurub inay ka fakarayaan maraakiibta Ruushka inay gacanta ay ku dhigaan oo ay meelo kale u iibgeeyaan.
dabayaaqadii bishii Juulaay ee dhaaftay midowga Yurub ayaa wuxuu ansixiyay qorshe cusub oo cunaqabatayn oo lagu beegsanayo dakhliga dowladda Ruushka ka soo gala dhanka saliidda. Tallaabooyinkaasi waxaa sidoo kale lagu daray maraakiibta dheeraadka ee ay Yurub ku tilmaameen maraakiib qarsoon oo Ruushka u leeyahay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay isticmaalaan habab kala duwan si ay kaga baxsadaan cunaqabataynta. Moscow ayaa waxay diiday hindisa Turkiga uu soo jeediyay oo ah in xabajoojin laga sameeyo biyaha badda madow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in Ruushka si joogto ula kulmayo waxay ku tilmaameen falal argagixiso aan xad lahayn oo ay Ukraine ay fulinayso. Zakharova ayaa waxaa kaloo ay ku eedeysay Kiev in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsanayso weerar ka dhana maraakiibta rayidka oo ay leeyihiin dalalka gobolka. sidoo kale waxay sheegtay in xabajoojinta qayb ahaan aysan xal noqon doonin, balse Ukraine ay siin karayso fursad ay ku nasato ciidamadeeda dib uga abaabushay isla markaana hub cusub ay ku samaysato. waa wixii Iiraan lagu eedeynayay. dhanka kale xaaladda military iyo tan tamareed ayaa waxaa lagu waramayaa in xaaladdu ay kasii adkaanayso qaar ka mid ah dekedaha dalkaasi Ruushka. xeebaha badda madow ayaa lagu waramayaa in qaarkood laga hakiyay dhaqdhaqaaqyada maraakiibta qaarkood iyadoo Ruushka uu ka baqayo in maraakiibta la bartilmaameysado. xarunta Sheskharis lagu magacaabo waa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee Ruushka oo saliidda uga dhoofiya biyaha badda madow. maalin kastaana waxaa laga maamuli jiray qiyaastii 700,000 oo fuusto oo saliid ceyriin ah. hadda waxaa lagu waramayaa xarumahaasi qaarkood in la hakiyay kadib weeraradii diyaaradaha dowliyaha aan lahayn loo adeegsanayay ee lagu bartilmaameysanaya dekedaasi iyo dekada kale. hakadka ku yimid xaruntaana wuxuu sii kordhinaya cadaadiska dhaqaale ee saaran kaabayaasha tamarta ee Ruushka, kuwaasoo bilihii la soo dhaafay marar badan weerar la kulmay. mid ka mid ah ilaha warbixinta laga soo xigtay ayaa sheegay in markab shidaalka qaada oo qorshe uu ahaa in saliid uu ka soo qaado dekedaasi uu maalintii shalay gebi ahaanba dhinaca badda ka baxay kadib markii la isku dayay in xaruntaasi lagu bartilmaameysado diyaarad aan duuliye lahayn. ugu dambeyntii Mareykanka ayaa lagu waramayaa inuu ka fikirayo inuu dib u qaabeyn ka sameeyo waxna uu ka bedelo naqshada nidaam difaaceedka Patriot loo yaqaano. wax walba arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagi doonaa. marka la eego dhanka iyo Lubnaan, Israa'iil ayaa duqeymo ka fulinaysa. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxay taagayeen heegan ay ciidamadeena ku jiraan, waana ka hortageynaa wax kasta oo khatar ku ah amniga guud ahaan ee dalkaasi Iiraan. falanqayntii qaybtan waa naga intaa mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.